أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسينا maanta waa 10kii shanaad, darsul khaamis, qaybtiisii 8aad. waa muraajaca, waa exercise 10kii shanaad. waxyaalaha aan kusoo baranay ayaan dulmarinaa insha allah. webkan waxaa ka baranaya waa Madina Arabic. my youtube waxa waaye lagu yara one. my facebook group waxa waaye tafsiirka qur-aanka. waxaan kaloo igala soo xiriiri kartaa aan admin ka mid ahay qolka qur-aanka kariimka. excuse me, let's start in maaragtay. click baa ku samaynaysaa ku akhrinbo maaragtay. webkan alkacbatu waa kacbada ay muslimiinta u tukadaan ee maka ku taal xaramka. waxaan arkay soomaalida sometimes markay akhrinayaan caynkaa soo horeeya, hadda ba'day soo hormarinayaan for some reason, I don't know why. kabcada ay leeyihin. kabcada maaha, ba'da ma soo horeyso, caynkaa soo horeeya, kacbada. tusaale kale hadaa idin siiyo maaragtay, kelimada maaragtay tacbaan baa nahay oo kale maaragtay, daalanaha mogtahay anaa tacbaan. yani caynkaa soo horeeya, soomaalida qaarkood ba ay soo hormariyaan, I don't know the reason. tabcaan baa nahay ay leeyihin, soomaali ka dhigan. tabcaan afariga luqad macno kale waa maaragtay. waa soo tabca oo kale, waxaan soo tabca. anyway, tusaale ahaan taas iga tahay iyo fikrad in luqadeedii ka siinayo. hore u soconayna. arrasuulu waa lasoo, qof lasoo diray. rasala, ilaah xaggiisa laga soo diray rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nebiyin waa qof waxa loo sheegay oo nebi loo akhbaaray waayo. marka rasala ay ka timid kelimada 3daas xaraf. ra sa la waa prophet, rasuulka lasoo diray, ilaahay noo soo diray. alibnu waa wiilka aad dhashay. san waa magaca, name, maismoka haddii la yiraahdo magacaaway maaragtay. alkhaalu waa abtiga. alcamu waa adeerka. carabiga halkan waa u kala duwan yihiin, abtiga iyo adeerka kala magac waayo. laakiin ingiriiska uncle unbuu iska yirahdaa, labadaba waa uncle, adi kala garabal. anyway, waa gaariga. waa boorsada ama baaga, boorsada. ani borson oo aqaana, haddii maaragtay dadka wax kale u yaqaanaan not feeling muqliqun waa close, waa xiran tahay, waa xiran. waa jidka ama wadada. xaggaas oo kale wey. there waa meel kaa fog. hunaana waa meel dhow. taxta waa under, waa hoos, meel ka hooseysa. taxta sariir, sariirta hoosteeda wey. waa hortaada. amaamak ka adaan raasiyo. amaamak waa hortaada. amaam waa horta. waa korka. fowqa something, fowqa sariir haddaad tiraahdo, sariirta korkeeda waa ama dusheeda. almudarisatu waa macalimada, waa qof dumara, bikaas ta baa la socoto. haddii taada laga jaro almudarisu, nin ragu noqonaya maaragtay, qof dumara maaha. okay, waa gadaal, behind you maaragtay, khalfa, gadaashaada. I think intaas maanta casharkeenu ku egyahay. casharkii shanaad waxaa nagu dhamaaday. bari waxaan bilaabanaa casharkii 6aad insha allah.
wabilaahi towfiiq. waxay su-aalaha waad ila soo xiriiri kartaan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.